asalaamu calaykum aad baan idiin salaamay leelkiinba waxaan rajeynaya inaad fiicantiin meel walbood iga daawanaysaan maanta waxaan wadaa muuqaal aan ugu magac daray filashooyin sare iyo ficilo hoose muuqaalkan waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood qaybta koowaad oo ah filashooyinka sare iyo dhibaatada ay leedahay iyo qaybta labaad oo ah sideed uga gudbi kartaa ama uga bixi kartaa filashooyinka sare filashooyinka sare ayay waxay ku horseedaan nolol aan xasilooni lahayn qanaacana lahayn maxaa yeelay marka aad nolosha wax walba oo kugu hareeraysan hadday noqoto guurka hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto shaqada hadday noqoto horumarinta shakhsiyadeed haddii filashooyinkaagu ay ka sarreeyaan ficiladaada waxaa kugu dhacaya niyad jab marka qaar waxaad isweydiin maxaan anigu wax la qaban lahay maxaan anigu waxba iigu toosi laayihiin markaad dadka ka filatid filashooyin aada u sare waxaad kala kulantaa niyad jab marka qofku yidhaahdo hadiyad baan kuu keenayaa ee aad filato waxa ugu qaalisanaya qof u hadiyeeyo qofkaasna uu kuu keeno hadiyad iska caadiya ama wax yaroo iska fudud hadduu doono xabad shukulaato uu kuu keeno qofkaas waxaa kugu dhacaya niyad jab maxaa yeelay filashadaada ama rajadaada ku aadanayd dhanka hadiyadda laguu keenayo baa aada u sarraysay waxaad waayaysaa markaa qanaacada shayga laguu keenay xataa haddii uu yahay shaygaasi laguu keenay hadiyadda laguugu keenay shay qaaliya markuu ku yidhaahdo qof waan ku casuumayaa maanta anaad ii casuuman tahay eed casuumaadda timaadid haddaad filanaysa in laguu keeno hilib iyo bariis iyo wax walbo macaanoo maaragtay qof lagu casuumo haddaad filanayso si cajiiba lagu casuumayaa qofkaasna uu kuu casuumo si iska caadiya waxa uu awoodo markaa qofkaasi waxaa laga yaabaa in lagu kariyo bariis dalacbilaasha isku karis baa laga yaabaa in lagu kariyo waxaa laga yaabaa digri iyo bariis in lagu kariyo qamadi in lagu kariyaa laga yaabaa kaligeeda oo lagu daray sukor yar lagu daray adiga waxaa kugu dhacaya niyad jab waxaad niyad jab ka qaadaysaa filashadaadaa sarraysay waxaa laga yaabaa inaad si khatara usoo labisato istirahdid waa lagu casuumayaa si khatara lagu casuumayaa si fiican u labiso isa soo hagaajiyo waqti isa soo geliyo hadhow marka lagu keeno digriya bariis ordaya aad ku qanci weydo gaajaa ku haysa inaad qiimeyn baa laga yaabaa xataa cuntadaa lagu siiyey qanaacadu kaa tagto taasna waxaa u sababa filashooyinka sare aad ka filatid dadka kale filashooyinka sare aad ka filatid naftaada xataa marka aad dhahdid waxaan baranayaa tusaale ahaan luuqad baan doonaya inaan barto markaad tidhaahdid luuqad inaad baratid maalin iyo laba iyo bil iyo laba wax qaadanaysa ma ah waxay u baahan tahay mudday u baahan tahay joogteyn bay u baahan tahay ka go-naan bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay dulqaad bay u baahan tahay waxyaabo badan bay kaaga baahan tahay markaad qorshaysatid eed dhahdid luuqad baan baranayaa luuqadda ingiriiskaan dhahnaba luuqadda ingiriiskaan baranayaa baa tiri tusaalahaan usoo qaadano luuqadda ingiriiska waxaad siisay muddo 6 bilood ah ama aan dhahnaba sanad baad siisay maanta halkan aan ka bilaabayaa maantaan bilaabayaa qorshaha dejinaya aan ku baranayo luuqadda sanad waxaan doonayaa inaan joogo heerka ugu sarreysa luuqad qof ka gaadho ugu yaraan inaan ugu hadli karayo luuqaddaas oon u adeegsan karayo oon u isticmaali karo sida luuqadayda hooyo aan ugu hadlo sida luuqadayda hooyo aan u isticmaalo inaanu isticmaalo baan doonayaa hadafkaagii iyo tawaqucaadkaagii iyo filashadaadiiba waxaad ku xidhay halka ugu sarreysa muddada naftaada aad siisayna waa sanad ama bilooyin xataa dhahna sanad iyo badh aan dhahno sanad iyo badh markaad naftaada siisay ama aad sanad siisay luuqadda inaad ku baratid dadaal yar waxaa laga yaabaa 5 eray inaad maalin walba baratid waad joogtaysay sanadkii baa dhammaaday luuqaddii markaad fiirisay marka heerka aad taagan tahay waxaa laga yaabaa inuu noqdo boqolkiiba aad 25 ka taagan tahay maxaa luuqadda eber baad kasoo bilowday markaa boqolkiiba 25 markaad ka taagan tahay ama boqolkiiba 50 marka ugu badatee dadaasho boqolkiiba 50 baad ka taagan tahay heeraad luuqaddii akhrin karayso xoogaa yar aad ku hadli karayso aad danahaaga inaha yararka aad ku qabsan kartid baad ka maraysaa waxaa isdiidaya ficilkaaga iyo filashadaada mar walba oo filashadaadu ay sarrayso mar walba oo filashadaadu ay ka badan tahay ficiladaada waa mar walba oo niyad jab aad la kulantid waa mar walba ood qanaaca darro la kulantid naftaada xataa ka shakin xaylay qof baa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo anigu luuqadda waxaan ku bartay sanad baan ku bartay luuqadda ama anigu waxaas intaasaan ku qabtay adigii markiiba waxaad bilaabaysaa qofka inaad isbarbar dhigtid inaad dhahdid qof hebel muddadaasuu ku bartay qof kalena muddadaasuu ku bartay aniga maxaa igu dhacay luuqaddii la baran waayey ama aniga maxaa igu dhacay maxaa adiga waxaa isdiidan ficilkaagii oo ahaa inaad maalin walba 5 eray qaadatid ama 5 jumladood qaadatid in yar oo naf lahayn aad luuqaddii mataqaanaa maalinkii ka samaysid intiiyood joogtaysay xataa
aysan ku gaarsiin heerka aad doonaysa. Maxaa leh heerka aad doonaysa ee ahayd luuqadda inaad ugu hadashid sida dadka u dhashay ama sida luuqadaada hooyo aad ugu hadashid oo kale. luuqadaada hooyo inaad ku hadasho maalin iyo laba kaama qaadan, waxay kaa qaadatay siniin iyo siniin bay kaa qaadatay. maxaa yeelay maalin walba erayaa kuu kordhay, maalin walba waxbaa kuu ziyaaday. markaad yaraydeed xataa hadlaysay luuqadda inaha asaaskaad marka u horreysay ka baratay. marka hore dhegeysi badan baad bilowday, baraarug badan baad bilowday inaad juhdi geliso, kadib baad bilowday inaad ku hadashid si fiican. maalinba maalin ka dambaysa waad soo fiicnaanaysa. marka iyada iska ilow inaad luuqad bil iyo laba iyo sanad iyo laba ku baratid. waad ku baran karaysaa, heer fiican baad ka gaari kartaa, laakiin heerka qof u dhashay ama heerka luuqadaada hooyo sidaad ugu hadlaysid oo kale inaad ugu hadashid waa rajo aadan gaadhaynin baan dhihi karaa. rajooyinka aadan gaadhaynin ama filashooyinka saraayi dhibaato badan baad kala kulantaa. tusaalahan usoo qaadanayay hadday noqoto naftaada, filashooyinka sare ku aadan naftaada, ku aadan dadka kale, ku aadan waxyaabaha kuu yimaada, qanaacada xataa wallahi bay kaa qaadaan. sidaan kuu sheegaba marka qofkii wax kuu keeno, wixii haddaad qofkii ka filanaysay heer sare ama qof baabad caawisay ood abaal u gashay, waxaad ka filataa qofkaas inuu kuu gudo abaalka. sidaad ugu gashay si ka sarreysa ama ka qurux badan ama ka wanaagsan inuu kugu gudo abaalkii. maalin baad u baahatay, qofkii wuxuu ku yidhi wuu kaa cudur daartayba, wuxuu kuma qaban karay haddan. waxaad bilaabaysaa markaa inay niyad jab kugu dhaco oo dahdid qanaacaba aad weydid. isku soo wada duuboo filashooyinka saraayay dhibaatooyin badan buu qofku kala kulmaa oo ka mid ah xasilooni darro, deganaansho la'aan, qanaaco la'aan, xataa mahadin la'aan. qofku inuu ka mahdin waayo waxyaabaha ilaahay siiyey, waxyaabaha bini'aadamku ay u sameeyaan, waxyaabaha isagu naftiisa uu qabto xataa inuu ka mahdin waayo oo maaragtay filashooyinkiisii iyo ficiladiisii ay isdiidaan. markaa sideed uga bixi kartaa? aan usoo gudubna qaybta labaad ee muuqaalka oo ah sideed uga bixi kartaa filashooyinka sare. tan ugu horeysa beerashada caadooyin wanaagsan. sida waan soo noqonaynaa caadooyin. markaan leeyahay caado inaad beeratid, wax maalin iyo laba horta inaad samaysid sideedaba waxba kuguma qabsoomaan. marka inaad caado ka yeelatid shayga aad doonaysid inaad heer ka gaadhid, inaad caado ka dhigatid ood joogtaysid baa waxay tahay ta aad natiijo wax ku oola ku heli karaysid hadhowto. marka beerashada caadooyin wanaagsan oy ugu horeyso sixitaanka jadwalkaaga hurdo. waxaa la yidhaahdaa maalinkaaga wanaagsan waxay bilaabataa habeenkeeda. marka maalinkaaga wanaagsan waxay bilaabataa habeenka ka horeeya. habeenka markaad horey u seexatid baad maalinkaagana wax qabsataa. markaad horey u seexato baad horey usoo kacdaa. markaad horey usoo kacdid baad wax qabsataa. marka inaad saxdid jadwalkaaga hurdo. hurdadu waa waxa ugu muhiimsan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee bini'aadamku u baahan yahay, asaasiyaadka nolosha aadamaha. hurdo fiican markaad seexatid maalinkaaga waxaad dareentaa nashaad badan iyo furfurnaan badan iyo fax inaad tahay iyo energy badan baad dareentaa, yaraad wax badan qabsan kartid. markaadan hurdo fiican helin, aniga hadda kahor waxaa dhici jirta inaan mararka qaar hurdo yar baan seexan jiray habeenkii. badanka waan iska dhafri jiray, waqti dambaan seexan jiray, aroortii baan haddana horey usoo kici jiray, maalinkii kuma noqon jirin. marka waxaa igu dhici jirtay laabjeex oo kale inuu igu dhaco, maalinkii oo dhan inaan energy la'aan iska ahaado, iska dareemo daciif iska dareemo. fikirka inay dhada iga fuusho kale, maaragtay fikirka mararka qaar waxaa dhacda fikirka inuu dhada kaa fuusho, inaad si sax u fikri weydo. inaad fikri weydo kama wada nooc waalashada kama wado, ilaahay baan ka magan gal. waxaan ka wadaa mararka qaar waxaa dhacda fikirka inay dhada kaa fuusho oo si fiican oo waadix aad u fikri weydo, ama maskaxdaaduba aysan doonayn ka caajista inay markaa fikirto, wax ka fikirto, waxyaabaha qaar inay ka fikirto. inaad wax akhrin weydo, waxyaabo badan baan kala kulmay. marka qofku waxyaabo badan baana lagala kulmaa. qofku oon seexanin hurdo ku filan, haddaadan seexan hurdo kugu filan xataa xanuuno badan baa kugu dhici kara. marka seexashada hurdo kugu filan waxay kaa caawisaa maalintaada oo kuu wacnaata, wax badan ood soo saarto, wax badan ood qabsato. markaa seexo hurdo kugu filan, maalin seexo, habeen seexo, aday ku taallaa. laakiin muhiimaddu waxay tahay hurdo fiican oo kugu filan inaad heshid. hadday xidhiir tahayna way ka fiican tahay. maxaa yeelay hurdada qofku markuu maalinkiin habeenkiin an yar seexdo, maalinkiin an yar seexdo, intuu gam aya xataa waa waqti, intuu isgadgadinayo waa waqti. laakiin markaad hal mar hurdo fiican oo qoto dheer aad gashid, waxaad helaysaa hurdo fiican oo xidhiidha baad seexanaysaa. waxaa jira sidoo kale muuqaal aan kaga hadlay hurdada si dhammaystiran aan ugu sharxay hurdada iyo qofku meequu u baahan yahay hurdada.
qaybtan hoose soo dhigi doona insha Allah tacaala ama kor baan soo saari doona haddii la raali ka dhigo. Wata koobaad waxaan nidhi hagaajinta jadwalkaaga hurdo. Talabaad waxay noqonaysaa salaada qofku inuu hagaajiyo xidhiidhka isagiyo rabbigii ka dhaxeeya oo ugu horeysa salaadu waxay siisaa aakhiri adduunba barako. markaad salaadaada joogtaysid caajiska iyo wahsigaa kaa tagaya, firfircooni baad dareemaysaa, waxaad dareemaysaa raalli ahaanshaad dareemaysaa, adaaba naftaada raalli ka noqonaya. marka inaad saxdid salaadaada, waqti aad ku tukatid. dad muslimaynu nahay, Soomaali haddaynu nahay, marka salaada inaad waqtigeeda ku tukatid faa'iidooyin aad u badan bay leedahay, aad iyo aad u badan. hadday noqoto dhinac maaragtay aakhiradaada, hadday noqoto iyo hadday noqoto adduunkaagaba. hayle markaad salaada ka tagtid ama ay salaada ku dhaafto, waxaad dareemi sibaad naqsi u dareemi, sibaad u dareemi caajis iyo wahsi u dareemi. aan usoo gudubna tan saddexaad, samaysashada jadwal maalmeed. inaad samaysatid jadwal maalinla ah ood howlaha aad qabanaysid ama waxa aad baranaysid maalinkaaga. jadwal haddaadan samaysan maalinla ah, haddaadan samaysan weliba, maskaxdu maalin oo dhan waxay isweydiinaysaa markaad wax qabanaysid maxaa ku xiga, maanta maxaan qabanaya. maskaxdaada culayskaas maanta dhan inay su-aal isweydiisa waad u fududayni marka aad jadwal maalmeed samaysatid. waagu markuu baryaba waxa u horeeyaad qabataa ay noqoto jadwalkaaga maanta maxaad qabanaysaa. haddaad tahay qof samaysta jadwal si caadiyan samaysta oo ama jadwal isbuucla samaysta ama jadwal billa samaysta ama jadwal sanadla samaysta, iyadana way fiican tahay. laakiin mar walbaaba jadwal maalinla inaad samaysatid waxay kaa caawinaysaa waxyaabo aad u badan inaad maaragtay qabsatid ama ay kuu qabsoomaan. maskaxdaadana waxaad ka caawinaysaa fikirka kusoo noqnoqda. maskaxda waxay qaadataa go'aamo mararka qaar maalinkii, go'aamo aad maaragtay aad caawin kartid maaragtay ama ka fududayn kartid maskaxdaada inay maanta dhan ka fikirto ama inay qaadato maxaan qabanaya. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maalinkii 100 mar inaad isweydiiso, laakiin haddaad meel ku qortid maskaxdaada waad u fududayni fikirka faraha badan ay ka fikirayso. maxay qabanaysaa, maxaa ku xiga waxaan hadda qabanayo, waxaasoo dhan baad ka fududaynaysaa maskaxdaada. tan shanaad, jimicsi inaad samaysid. maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa caqli caafimaad qaba wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba. inta aad samayn lahayd intaad meel iska fadhiisato aad maaragta khayaalkaaga waasac ka dhigi lahayd, aad ka fikiri lahayd ama aad filashooyinkaaga ka dhigi lahayd kuwa aad u sarreeya, waxaa ka fiican adigoo maal gashta waxa ugu qaalisan ee aad haysato. waxa ugu qaalisan ee aadamu haysto, mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan ee aadamuhu haysto waa caafimaadka. markaad caafimaad qabtaad aakhiradaada u shaqaysataa, markaad caafimaad qabtaad adduunyadaada u shaqaysataa. waxaa la yidhaahdaa qofka caafimaad qaba, qofka xanuunsan qofka caafimaadka qaba wuxuu ka fikiraa wax walboo dunida yaallo ka fikiraa, wax walboo dunida yaallo doonaya. laakiin qofka aan caafimaadka qabin ee xanuunsan wuxuu ka fikiraa hal shay, waa caafimaadkiisa. halkaas waxaa usoo fuulaya diiradda caafimaadkiisa kaliya, sidaad ku caafimaada. marka waxaad haysataa caafimaadkaaga maal gasho, jimicsi samee. waxa ugu yar eed samaysaana waa socodku aniga ahaantayda waa wax aan ugu jeclahay alxamdulilah, ilaahan ii fududeeyey. aad baan u jeclahay socodka. marka socodku wuu ku anfacayaa, waa waxa ugu yar eedna samayn karto jimicsi markay noqoto. maxaa yeele haddaad waxyaabo kale awoodid, jim inaad tagtid, inaad orodid, inaad waxyaabo kale samaysid way ka fiican tahay. haddaadan samayn karinna waxa ugu yar eed samaysaa saad u maalgashatid caafimaadkaaga. maanta caafimaad baad haysataa, berri ma ogi, laakiin saad u maalgashatid ood u dadaashid jimicsi, waxa ugu yar eed samaysaa ha noqdo socod maalinla ma aha socod bishiiba hal mar ama isbuuciiba hal mar ama in yaroo guriga dhex socsocotida maaha. socod aad niyeysatid oo ugu yaraan aad maalinkii 30 daqiiqo soo lugaysid ama saacad soo lugaysid. tan kale waxay tahay inaad ka fogaatid waxyaabaha waqtiga kaa lumiya kuna siiya farxadda waqtigeysan, sida social mediaha oo kale. maxaa yeele dadka badankiisu waxyaabaha waqtiga ka lumiya haddeertan waxa u badan waxay tahay social media. tiktok baa galaysaa, videoga ku dhiibayaa, qaabku u samaysan yahay baaba inuu ku jiitaba magnad camal. marka inaad ka fogaatid waxyaabaha ku siinaya farxad waqtigeysan, waxyaabaha waqtiga kaa lumiya oo ay u badan yihiin social media iyo daawashada filmaanta. dadka qaarna filmaan bay iska daawadaanoo social media saa uma sii galaan, laakiin filmaan waqtigooda u badan film buu kaga baxaa. marka inaad ka dheeraatid. maxaa yeelay habeenkii markaad seexanaysid, marka u dambayseed sii seexanaysid, eed isweydiisid maalinkaagu muxuu kugu dhaafay, adigu aad isxisaabinaysid, waxaad ogaan inaadan wax badan qabsan.
waxaad ogaan markaas waxaad bilaabi inaad ul qaadatid naftaada adigu inaad dib isu garaacdid oo isu eedeysid oo isu qaniintid oo dhahdid maxaad uga faa'iidaysan weyda maalinkaada waagu markuu bariyo bari horey u kac howlo badan oo ku yaala qabso marka kaba dheero waxaasoo dhan haddii aadan ka dheeraan karinna ugu yaraan iska yaree xayli hadda in la iska daayo way adag tahay wallahi way adkaatay hadda in la iska daayo social media aad buu dadka u jiitaa aad buu u jiitaa dadka marka qof walba oo yidhaahdo waan iska daynayaa mar bay danu kaa soo geli markaasaa laga yaabaa in waqti badan oodan ku talagelin kaa qaato markaasna iska yareen kale waxay tahay joogtayn wax walba oon horay usoo sheegnay haddii aysan joogtayn helin beerashada caadooyinka faraha badan ee soo sheegay haddaysan joogtayn helin caado noqon maayaan xayli wax yaroo lagu celceliyo baa waxay noqdaan caado muddo dabadeed laakiin wax walba oon lagu celcelin ama aan la joogtaynin caado ma noqdaan maskaxdana ma degaan marka inaad isku day inaad samaysid joogtayn wax walba oo noloshaada qorshaysatid inaad samaysid inaad joogtaysid muhiim aha inta uu yaryahay muhiimadda waxay tahay waxaa la yidhaahdaa sadar iyo subax yaa badan subax baa badan mar walba sadarku wuu dhammaanaya maanta haddaad kitaab bilowdid ood alif kasoo bilowdid qur-aan haddaad bilaabaysa alif kasoo bilowdid muddo dabadeed waxaa arkaysa adigoo qur-aankii dhameeyey muhiim aha intay kugu qaadanaysa sanado 15 sano hadday doontaa kugu qaadata laakiin waxaa la yidhahdaa sadar iyo subax unbaa badan haddiiba cimri ilaahay ku siiyo oo kugu siman marka wax walba oo aad samaynaysid ama aad qorshaysatay joogtee markaad wax qorshaynaysidna sidaan horey u sheegayba filashooyinkaaga wax sare ha ka dhigin naftaada ha ka rajaynin wax ka badan awoodeeda wax ka badan ficilkeeda xamaasadda shayga la yidhaahdo ama xiisuhu waxa weeyaan dareemada waqtiyeysan dhaqsay dhammaadaan si walbood wax u xiisaynaysid ama xiisiya xamaas ku hayood leedahay waxaan waan samaynayaa oo energy aad haysid markaa maalin 2-3 hadday u badato isbuuc kadib xamaasku wuu yaraanaya uu soo yaraanaya maalin ka dambaysa wuu tegaya marka dambe qof walba oo noloshan maanta wax qabsaday ama heer gaadhay kuma gaadhin xiisiya xamaas laba qof oo kastoo dunida isjecel oo isguursataa xataa marka hore siday u dhararaysa xataa inay isguursadaan ay u leeyihiin aroos goormaan isguursanaynaa qofka nolosha ku midoobaynaa marka la isguursado hadday u badato bil baa laga yaabaa dadkaas inay isku faraxsanaadaan marka dambe noloshu caadi bay iska noqotaa way soo yaraataa xiisihii faraha badnaa baa yaraanaya marka weligaa iyo allaha waxba ha ku xukminin xiisaha marka aad ku jirta ama xaaladda marka aad ku jirta xaaladda aad ku jirta hadday tahay murug cabsi walbahaar yacni cabsi murug dareemada waqtiyeysani muddo yar dabadeed way dhammaadaan way iska tagaan ma waarayaan ma aha kuwa waarayaan marka isku day inaad wax joogtaysid wax markaad samaysanaysid jadwal samaysanaysidna ama aad doonaysid wax inaad joogtaysidna waxa ugu yar ku bilow 5 daqiiqo ku bilow haddaad doonaysid caado cusub inaad beeratid socodka oo kale 10 daqiiqo maalinkii soco markaad bil maalinkii 10 daqiiqo joogtaysid bisha labaad waxaad ka dhigataa 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo ka dhigo xal haddaad tidhaahdid marka u horeysa waxaan ka bilaabayaa 2 saac inaan maalinkii soo lugeeyo ama 1 saac inaan soo lugeeyo waan joogtaynayaa xiisiya xamaas ku galo qof ku dabadayatid dhiirigelin heshid si walba wax laguugu sheego muddo yar dabadeed maaragtay energy-ga ku jira wuu yaraanayaa howlaha kula xidhiidha ama kula soo darsaana way badanayaan way isbedelayaan maanta haddaad iska firaaqa haysid berri ma haynaysid energy-gaad maanta haysid berri ma haynaysid xiisaha iyo xamaaskaad maanta haysid berri ma haynaysid marka inaad wax joogtaysid waxa ugu yarna aad ka bilowdid ta u dambaysa waxay noqonaysaa isdhihi karo qofku wuu kaga gudbi karaa filashooyinka sare ku noolaanshaha ilbiraqsiga ama way kaa caawinaysaa inaad ku noolaatid ilbiraqsiga bari maxaad mutaysanaysaa halkeed gaaraysaa maxay markaad bilowdid hadaf markaad bilowdid inaad rumaysid hadaf ka mid hadafyadaada inaad rumaysid marka u dambaysaba waxa aad halkan soo saarataa yuusan noqonin natiijada u dambaysa muhiim aha natiijada u dambaysa ee sawiratay ee ah natiijada ugu cajiibsan inaad heshid laakiin muhiimaddu waxay tahay safarka inaad ku noolaatid socdaal baad bilowday ah inaad hadafkaa ku xaqiijisid socdaalka inta aad ku jirtid inaad mataqaanaa ay ku raaxaysatid safarka inaad ku raaxaysatid ku noolaatid ilbiraqsiga maantaad joogtaa maanta ku noolow markaad dib u fiirisid bishii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay waa tagto wayna soo dhaafeen lama soo celin karayo miyaadan maqal waa habeenkii xalay ahaayo tegay waxaas soo noqon maayo habeen tegay soo noqon maayo maalin tagtay soo noqon mayso sanadku dhaafay soo noqon maayo marka ilbiraqsigaad hadda haysato waa waxaad mulkido waa waxaad haysatid hadafkan aad maanta bilowday halkee buu gaari doonaa natiijadiisa kama dambaysta sidee noqon doontaa maxaan dareemi doonaa waxaasoo dhan adoonba gaarin baabad
baad sii sawiranaysaa sii dareemaysaa khayaalkaaga waasac ka dhigaysaa way fiican tahay han sare ma dhahayo marnaba qofku maaragtay wax hoosaha ku qanco laakiin waxaan leeyahay filashooyinka saraayay dhibaato badan bay biniaadamka u sababaan marka filashooyinkaaga iyo ficiladaaduna hadday isdiidaan waa dhibaato filashooyinkaaga iyo ficiladaadu kuwa is yeelanaya ha noqdaan nolosha waaqica ku noolow halkan haddaan isla soo gaarnay muuqaalka aad buu u dheeraaday waan kaaga mahad celinayaa muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto oo qoyska quruxda badan qayb uga noqoto subscribe taabo wixii fikir iyo raay isweydaarsiya ama aad jeclaan lahayd in laga soo sameeyo muuqaal laga soo sameeyo qaybta hoose ee faallada nagula wadaag waana muuqaalka kan xiga insha allah nabadii caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum